intaas waxaad dareemi kartiin in maalinba maalin ka dambaysa dawladba deelbo ka dambaysa ay wax sameynaysa. waxaan rabaa inaan aad u xasuusto oon xuso dad badan ayaa waxay yidhaahdaan waxaa la horta gadaalka gaar goobdumis waa la waxaan rabaa saaxiibkay khayr xukuumaddiisa dad ka midana waxaan ka dhagaysanayo oo dhahayo inay ayagu wax qabteen. saaxiibka yiriisow xukuumaddu ka tirsanaa waxaan rabaa in la sheego wixii ka horreeyay la soo qabtay. taas abaal daray naqanaysaa. waxaad timadeen meel dhisanaad timadeen lagu soo dhintay, lagu soo rafaaday, lagu soo qarxay, lagu soo baahday ayaa timadeen oo dhisan. ma sheegtaan dadkii hore wixii ay soo qabteen. abaal daridaas ma fiicno. waxaan rabaa aniga in la sheego qof kasta oo Soomaali ah shaqada uu qabtay in la sheego. taasay cadaaladdu ku jirtaa, Soomaalinimadan ay ku jirtaa. 28 sano wadankan uu burbursanaa ani sidana u dhax taagnaa weligii meel kama aadan. saaxiibka yiriisow Ingiriiskuba ka yimid badde oo aad amaanaysaan. waa maasii aniga cid amaanays ma arkinba. yaa amaanayo baani 28 sano intaan dhax taagnaa qabbi qishtan. war dadka aniga iga daranaa jooga wadanka oo wadanka wax ka qabtay oo u dhintay oo u rafaaday oo gabdho iyo wiilal leh. gurigan sidaan u qurxan sidaan uma qurxanayn. ninka saan u qarxiyay meeshaan u fadhiyaa gacantayda xumaan uguma taagani. muungab kuwa ka sii horeeyay kuwa ka sii dambeeyay abaal la'aan waaye qofkii wadankan hal macalgeed ku kordhiyay in la abaal daro jisaaru naqana. man lam yashkuri nnaasa laa yashkuri illaah. war qofkan bani aadamka ku shukrinin ilaahayna kuma shukrinaayo. maxaa yeelay wadankan waa loo soo rafaaday, dad badanaa u soo dhintay oo wax u soo qabtay. saaxiibo badanoo meeshaan joogo hadda taay u xiran yahay waxay yimideen meel nimco leh ayay yimaadeen. hortooda dad u soo dhintay waxaan hubaa 2009 nin xildhibaan ah inuu baaha inta ugu baqtay ugu dhintay markuu wax uu cuno u waayay asoo qof u shaxaadana ka garan waayay meeshaan soo marnay. xildhibaan qaran ahaa cid taqaana ma idin ku jirto. war ilaahay lagu xamdi meel barwaaqaha timideen. ummadan wixii la soo maray xog ogaalaan u nahay. dhibaatadii meeshaan ka soo bilaabay laga soo bilaabay nin walba u soo dhimanayo koon u soo dhimanayo koon u soo kacay. maanta maxaan joognaa? waa arkaysan sida wanaagsan qiimaha iyo wanaagga leh oo meesha xilka loo kala wareegay. dadaa keenay iskama imaanin. taabid iyo riisowna ma keenin, waa laga horreeyay. waxaan rabaa qof waliba wuxuu soo qabtay in la sheego. dadnimadii Soomaalinimadana taasay ku jirtaa. wadankan cid